qabsaday habeenkii li dawladdu soo qabanaysay oo saldhigga gaalkacyo la keenayay habeenka saraakiishu badankeed way joogtay meesha geedi iyo ninka halka fadhiya iyo fardafuul baa yiri inuu kiis noocaas ah ku haysanaa oo debaaritaanka hadii wax la wadwaday waliba wiilkan ay wareysanay wuxuu yiri hadii wax la wadwaday hawsha adeeg soo gashay inuu noo fududeeyo hadaa ciyaal yar yar oo la dhibaateeyo waxba waxaasi dhib ma lahayn hadaa gashayna noo sheeg hadaa inuu weyn baan hayba sidee ila hadlaysan hadii aniga aleedin waxba gashay waa kugu cadeynayna i haysta oo igu cadeeyo hadaana wax gelinna wax quruna ka sheekeynaysa in sii daaya ninkan qolkana la joogo malaynaya cabdira joojule waa joogay fardafuul qolkana la joogay ninka waa joogay maayirka magaalada waa joogay ha ereygi markaan irigu yirgeedi gabdhihi yararka la keen waxa la keenay wiil la yiri gabdhaha yararka uu la socday oo ka roon oo maalinta hore maxkamadda aan la keenin laakiin maalinta dambe la keenay maanta aan muuqan oo la yiri gaariga lagu la qaato fardafuul iyo Saciid Buushe waa ii weydiin karnaa su'aashaas fardafuul baa Saciid Buushe wuxuu yiri sharmaaka aan dhinacyada ka istaagno intuu sa wiilku soo galin sharmaaka aan dhinacyada ka istaagno geedi baa diiday yiri ma isaha ku soo galo waa soo galay ninka ma garanaysaa yiri aad buu yiri ninka ma garanaysaa wiilkeerka uu eegay wuxuu yiri ninkan waligay maar sida adeer habaqine kelmadda hatta hadda aan rarka qaybtood aan iga go ilaa waxay tahay isagoo maajirka magaalada ah wiil yar wuxuu ku leeyahay anoo dambi lahayn adeer habaqine isaga weeye sheek runta sida adeer macaan adiga waa ku garanaya oo saraakiisha midna inta la hayay buu bartay sida adu laakiin kan wali ma arag sida shoog baa ku jira hal celiya gabdhihii baa garan doonee hadbidana lagu tuuro xiraadantu waxay sheegtay saldhig ku yaala kala kata in aniga kiiski markuu dhacayo la soo qabtay liigeeyay kaasa qol liigu tuuray family liima geyn labada lugood bir baa liiga jabiyay silsilad hatta waxa la diiday inaan kaadsho baa la diiday oo qol liigu tuuray inta waxa dheer family in ay wacwaala diiday familkaygu khadkay wax ku arkeen Sharmaaka Xuseen Yuusuf oo laba ciyaal oo yar yar ku saday oo dambiila oo qaybto ay soo dhigtay waliba dawladdu soo dhigtay dadku meel looga dacwooday leeyahay dawladda xagee looga dacwoodaa mar haday dawladdiba qof aan kiis galin oo kiiskiisa socdo oo wax cadeyna aan lagu hayn ay leedahay kiiska waa galay mujtamaca kuma dhaxnoolaan karo nin magaalada joogaan ahaayo hadii de xeer soo baxay marixaanku inay isku noolaan magaalada in la ii sheegay markuu iska qixi lahaa magaalada kuma noolaan karo oo Soomaaliya kuma noolaan karo oo meel kasto aan tago hadda cadiifada inaan galay horta waxa ma galin ilaah baan ay bari yeelaya laakiin nolol dambe ima harin aan mujtamaca ugu dhaxnoolaado wiilasha yararka ka dambeeya xilka loo dhiibayo leeyri waxba baaraysaan oo saraakiil baatiin ka hadda hadalka la gabgable Sharmaake ku soo noqo difaacaga codka aad maxamed uraaga u duubtay ka war maxamed uraaga u duubay horta wuxuu in la isa saaro oo saankii isku saaro dadka madax laga galiyo ma kiiska ciyaalka xagga ay dhig halka dhig kiiska gabadha kala ka hadlaysa gabadhan anigu waa sheekaysan gabadh halka ma fadhida reer Malay waa sheekaysan meel ku qoran tahay ma jidho in dhalinyaro ay gabadh yeesho isu kaansan sheekana dhaxmadhay makhaayad bay lahayd subaxda quraacdan ka cunu jiray duurkii qadaan intaan ka cuno waliba wiilasha ila shaqeeyo uga qaaday jiray sahalkayga hadaa soo daawacdan makhaayada akoonkeeda iyo lambarkeeda lacagaan ku diray badataa ka helaysan muddo 2 bilooda inaan sheekaysan intaas saajidhay habeenka qofku khaldami kara anigu ma ahinin intuu wax sameeyo wuxuu sameeyay ka galgalanay qof badilin qof naf ma goyn wax daan sameeyay ana dhahaya waxa soo xiiqaanoona marin wax waa sameeyay khaladka aan sameeyay wuxuu ahaa codka habeenka aan duubay in dhalinyaro baan u duubay gabadhan ma aha gaarigan kala dhacay asagoo inuu ka kaxaysto in dhalinyaro sharaabsan buu ahaa asagoo naftirkiisu gaarigaygu rabay inuu ka kaxaysto anna isagan kala dhacay ma sharaabsaneed adigu aniga waa sharaabsana haddaan run sheego wax la qarqariyo ma fiicna okay sharaabsana maxaa ka wada khamriga dadku waa fahmi karaan haddaan ma waxaan rabaa inaan cadeyso inaan cadeysaan rabaa waxa cabaysay waxa uu ahaa ummadda u sheeg waxa cabsanayd aniga adaa hadda la wax sharaabsanay maxaa sharaabsanaa ka wada fool haday timaado gudaha qasasha dhamaan wadadkiisa qosli khamrida waa cabaano haday dambi tahay dawladda hay u qaad okay waaye wado kaalale waxa cadeynaya inaan kiis galin kaasoo kala iska badaaya taa ku eed inaan galin inuu baahay magaalada jooga xaasle dash magaalada
سمع مقع ما أهان إن أنا أقول أنت بالله وما بسوقه عبد الرئيس خلك دكتور أيضا هي أهم إيمارس شخصي أهم وادي مدرانة إيمارس أنا أندم بالكريم أيضا واحد يسأل لي ما أنا بقول في المجال ده وحدها يدمون ولي ما أردت عيد كيس بشيء وخدت رأيي كم دار كيس لا يعني وسيا يوري خدت كم يلا ضبطها ما أنا خدت قري ولو لي هنن نوع عصير هذا كيس كيستي وما بيدي ويسا إلا هذا كيس كي قاعد سمع الدليل أنت لك بحيته مو فسران كرا أنا قد كيمد مو فسران كرا وين نكى هذين كجاري يدي بمحكمة اللوكين لا nimankii gaariga kiiska lagu galay lahaa maxaa maxkamadda ilaanaha amniga loo keen laaya oo habeenka loo sii daayay iyagu meesha taagan leeyahay dhaqaaqa mid ka midna aan lahayn aniguna 9 saldhig aan isku maray ka katinada iga jabsaneed kan dhaawacay igu gaareen kaleeto ina gaal shiraha ina gareer hadda aan ku jiro maxay ku dhacday DNA ma laga qaado DNA-ga aniga oo raali ka ahayn oo leh cid aan ku kalsoonahay haga qaado wiilka ay ninka hawsheeda waday inta waxa dheer oo u dhacay aniga intuu taleefankayga qaatay gabar aan qabo dalka dibadiisa joogta oo lacag ii dir lahaa warqadaadii waan kaaga qaadaya ciyaal buus in qofka si hoos loo gala ma aha moogta dadku waxay isku dilaan way waxa intuu aniga xaaskayga wacay CID buu sheeganaya kiiska yaala mu ka hadlo taleefankayga wixii kiiska ka quseeyay mu ka baar intuu aniga xaaskayga u dhacay dalka dibadiisa joogta yiri lacag ii soo dir waxaani waa caadeyste naagaha qabsada ciyaal yarar buu wasa anaga cadeynayna lacag ii dir maxkamadan hadda kaaga qoraya warqadaada inuu heerka ila gaaro ma qabataa aniga ilaa haddana waxaan u xirnaa garmayo ilaa hadda ninka dhiyaan eego iga qaadayna kuma kalsooni ilaahay waa caadil anigu dhiyaan eego waa rabaa in laga qaado hadii lagu waayo saakiiska lagu ma helaye laakiin ninka kuma kalsooni ninka habeenkii yaxye ridda ka baxayay dhalinyarada kaleeto aniga ila harayo yiri hala jeebeeyo ilaa ay intaan iga daba wareegayay ciyaalka yararka markuu ii keenayo fiidiyowga laga duubayo isaga haya waaridkood way xiran yihiin sawirkeena baraha bulshadu daadsan yahay ha qolbu intuu igu soo galay waliba kagalaas biyaa igu salaamay sheelay intii laga soo saaray xaar badan anoo meel bay jaban tahay dhaawac meesha lagu garaacay saa'iri biyahan ka buu yiri wax shakiyay waxaan biyahan maxay tahay سيرني أنا يبان كهقادين ساري قادي ميس سوي قبضة أسكرت خسر وأنا هدا إيجا قادي سقف فاميل كيجا ميسها شوغاني خسر بيجا قاب خسر نكهاد أنا يرضى وعسى عدالة بالله الكيجوي شوغان محكمة ميدي ما شوغين ميسها إلا هو إيجا قاتي يمادين محا أوقلاتي بالي نين الله يستول لقى أذكي هاي بانها سأل عيال سوق بالوصاري اللي يا مقرع أنا إيه الكي أنا كريرة هيا وحيد شو ما أنت هذا حرنا هاي هاوي ما كنا اللي جربان الله اللي جربان إيه ما كنا ماشى أنت اللي جي وأنا بتقلي حبسي قال شراء وين أنت اللي جي وأنا بتقلي وأنا كنا بتقلي نيكي كيس كقلي بعالكان كوهران أنا ما مدح يسرقي وبان ماشي ده كتير لكن أنت هسلقي ده كتير ويل كهبين نيجا ما دولقاقين ما هن نيجا ما دولقاقين حتى وحي قابرية أنا ضمينية جدي هبين كل شيء أنا ضمينية جدي ويرنا على العتدي بينا هذا كيس كاجش هذا نضبولينا حب ويقول ضيق وحيلد ويقول ضيق وقاب والبوفور ويل كاو يقول ضيق الكافردية إنه كيس كاي صار عنك أنت أنا وواف ضمنا صلي حلقة اللي قصوا قاضي قال كعيو أنا جا محكمة دان اللي كيني المودي هل كاسال اللي كيني محكمة دان ما هل عد فلوه هل كاتاجن باليرنك عيالك وصيوي أصلا أنا يقدر باله نك عيالك يركض ديبكم جيستوي ما حد فلوه دارده يقول الباحية فاميلك يقول شوكين عندك ما كات شوك تجوب شيء هيد ولا كين كرا أصوي الباحية يقاري بس إسارة صلي كلا اللي قلت ورا يبري اللي قلت شبيه اللي قلت له والنور كا هل كا الكيجا كده بحي هل كا كيحن الكيجا كده بحي أنا شميت كأفكوا يا مدح اللي قلت شوك سل طبعا كميل بدأوا على يجي لا يقول فتين لقطان مدلبات تنبرية لقطان كان سعد ترين بحق أنت اللي جاي وحاجة جارين بحضنا وحلي قلت وري قال شراهون أنت أنا نوح سنين ما هاي نوعين مضبوطين على ميتين ها كائي هل كائي لا لقط هو بسكوت إلى هذا أنت كلته أسكرونا ما يحتم حكتمه مال كببودو سحب اللي يقول فطي مرمر خطي هذا بسكوت صدق قال لي جيس
saldhiga intaan ku xinaa leeyahay ay fadhiya taliyihiis mana joogin isagu shaqadana ma lahayn dhaawacyada niman ciidan ay geystay niman ciidan meesha jooga ay geystay walwaal nimay dhahan baan ka garanaya walwaal wuxuu joogaa mid kor ku yaala walwaal nimay dhahan baan ka garanaya saldhiga uu taliyaha ka yahay ninka maxamuud kalkata jilab way hod kalkata